kulanti wacan saaxiibayaal halkan waa dhanka wararka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay xaaladda dalka qodobada warkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya dabageed oo admis kala hadlay xaaladda gobolka Hiiraan ciidamada Jabuuti ee ku sugan beledweyne oo si cad u sheegay inay soo xirayaan Cali Jeyte xaaladda Hiiraan oo isbedeshay iyo wararkii ugu dambeeyay weerar culus oo ka dhacay xadka Soomaaliya iyo Itoobiya ee dhanka Hiiraan ayaan warkan ku falanqeyn doonaa balse marka hore u diyaar garooba hordhaca qodobada warka aad daawateen oo dhameystiran aynu ku horeynay dabageed ayaa admis kala hadlay xaaladda gobolka Hiiraan xilli ay u muuqato in ciidamada ku sugan beledweyne ee Itoobiya iyo Jabuuti ay si cad u sheegeen in ay gacan buuxda ku qaban doonaan ammaanka gobolkaasi Hiiraan xaaladii cakirneyd ee ka taagneyd beledweyne iyo guud ahaan Hiiraan ayaa mar kale isbedeshay kadib markii tallaabo culus uu qaaday madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle Yuusuf Dabageed oo isagu amar buuxa siiyay saraakiisha ciidamada admis kuwa xooga dalka iyo ciidanka Hirshabeelle ee ku sugan gobolkaasi madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Dabageed oo ku sugan beledweyne ayaa kulamo xasaasi ah ka wada gudaha magaaladaas xilli weli taagan tahay xiisad culus oo ka dhalatay xilka qaadisiga Cali Jeyte Dabageed ayaa kulan gaar ah la yeeshay saraakiisha ciidamada admis ee ku sugan gobolka Hiiraan isagoo kala hadlay amniga guud ee magaalada beledweyne shirkan oo ahaa mid xasaasi ah ayaa waxaa goobjoog ahaa gudoomiyaha magacaaban ee gobolka Hiiraan Cabdullaahi Axmed Sufurow saraakiisha ciidamada admis sector 4 iyo saraakiisha ciidamada booliiska Hirshabeelle ee ka howlgala gobolkaasi Hiiraan Dabageed oo kulanka ka hadla ayaa ku dheeraaday ahmiyadda ay leedahay in laga wada shaqeeyo xasiloonida iyo nabadda guud ahaan beledweyne si aysan foodo uga dhicin magaaladaasi oo ay ka taagan tahay xiisad ka dhalatay xilka qaadisiga Cali Jeyte sidoo kale madaxweyne Dabageed ayaa faray saraakiisha inay qaataan doorka kaga aadan nabadgelyada ayna ka hortagaan wax kastoo liddi ku ah nabadgelyada gobolka Hiiraan qaar ka mid ah saraakiisha oo iyaguna madasha ka hadla ayaa ballan qaaday in ay fulin doonaan amarka la siiyay isla markaana ay ka howlgeli doonaan magaalada beledweyne shirkan ayaa ku soo aadaya iyada oo weli ay halkeeda taagan tahay xiisada beledweyne ka dhalatay xilka qaadisi lagu sameeyay gudoomiye Cali Jeyte Cismaan isaguna oo si cad uga hor yimid waxa kale oo uu sheegay in gobolka Hiiraan gudaheeda ay mamnuuc ka tahay qof ka tirsan ama sheeganaya Hirshabeelle isagoo si cad u sheegay in mas'uuliyiinta Hirshabeelle aysan iman karin gobolka Hiiraan balse waxay u muuqataa in waxaas oo idil uu dhigaha ka fureys Dabageed isla markaana kulamo isdaba joog ah oo ka wado gobolka oo uu ku qaboojinayo xaaladda gobolka Hiiraan lama oga sida ay wax noqon doonaan waxaana beledweyne ay weli wajahaysaa dhaqaaqyo laba dhinac ah iska soo horjeeda taas oo uga sii daraysa xiisada ka taagan gobolkaasi Cali Jeyte Cismaan oo barbilowgii xiisada taageero culus ka helay xildhibaanada federaalka ee gobolka Hiiraan gaar ahaan kuwa beesha Xawaadle ay hadda u muuqataa in laga taal roonaaday kadib markii Dabageed iyo Hirshabeelle ay qaadeen tallaabooyin culus oo jidgooyo loogu dhigay Cali Jeyte iyo amradii kala duwanaa ee ku soo rogay amniga gobolka Hiiraan dhinaca kale ciidamada admis ee ku sugan beledweyne ayaa wacad ku maray inay fulin doonaan amarka Dabageed ayna xiri doonaan cid walba oo liddi ku ah amniga magaalada beledweyne taliyaasha ciidamada Jabuuti iyo Itoobiya ee ku sugan Hiiraan ayaa waxa ay si cad u sheegeen kana hor ballan qaadeen Dabageed in amarkiisa ay qaadanayaan isla markaana magaaladan amnigeedu ay muhiim tahay waxayna sheegeen inay xiri doonaan cid kasta oo ka soo horjeeda deganaanshiyaha gobolka Hiiraan saraakiisha kale ee ciidanka xoogga iyo booliiska Hirshabeelle ayaa iyaguna sheegay dhaqangelinta amarkan iyo inay tallaab ka qaadi doonaan dadka horinaya colaad aan jirin oo ka taagan gobolkaasi waxay muuqataa in Dabageed markan uu isku aadisay awood military oo lagu maqoonin karo Cali Jeyte iyo taageerayaashiisa waxayna hadda u muuqataa in beledweyne amnigeeda guud ahaan gacanta loo geliyay sector 4 admis ciidanka xoogga dalka iyo kuwa booliiska Hirshabeelle xilli Cali Jeyte iyo xubnaha kale ee taageerayaashiisa la sheegay inay joogaan meel aan ahayn xafiiska gobolka iyo xerada Lamagalaay oo guri caadi ah u degan yahay Cali Jeyte halkaas oo ciidamo badan uu ku haysto iyadoo inta badan magaaladana laga saaray ciidamadii taageersanaa Cali Jeyte ee xirtay gobolka xarunta Lamagalaay wadada gasha iyo bartamaha beledweyne taasoo ku muujinaysa in Cali Jeyte uu dhabarka xijiyay Dabageed isla markaana uu qaatay go'aan uu iskaga aamusayo xaaladda gobolka xilli gabi ahaan dhaqan geli waayeen amarkii uu ku soo rogay Hiiraan cir iyo dhulba uu ku xirtay taasoo ay muuqatay in Dabageed uu tusbax amal u furay siyaasadii isku xirnayd ee Cali Jeyte iyo xildhibaanada federaalka ee diidan Cali Guudlaaw Xuseen
shirka kadib ayaa la filayaa in go'aan adag ay qaataan admis ciidamada xoogga dalka iyo kuwa Hirshabelle oo ay ku xaqiijinayaan ammaanka guud ee gobolkaasi Hiiraan. dhinaca kale marka la eego xiisada ka taagnayd gobolka Hiiraan ayaa mar kale isbedelaysa, waxayna u muuqataa in awood military ay markan isticmaalayaan Dabageed iyo Cali Gudlaawe si Cali Jeyte meesha looga saaro. Cali Jeyte Cismaan ayaa markii hore isagu diidanaa xilka qaadisi lagu sameeyay, balse hadda waxay u muuqataa in tabartay u run sheegtay, isla markaana isaga iyo ciidamadiisii taageersanaaba magaalada ay ka joogaan hal dhinac, iyadoo inta kale magaaladana ay ku sugan yihiin admis ciidanka xoogga iyo kuwa Hirshabelle. xaalka gobolka ayaa mar kale isbedelay, waxaana hoos u dhac weyn ku timid xiisadii ka taagneed gobolka Hiiraan gaar ahaan Beledweyne, iyadoo xitaa xildhibaanadii qaylinayay ee Xawaadle ay u muuqdaan markan in afka joogda gabeen kadib markii ay arkeen awoodooda iyo in Hiiraan Dabageed looga dambeynayo. ugu dambeyntiina warar kala duwan ayaa ka soo baxaya weerar culus oo ka dhacay xadka Soomaaliya iyo Itoobiya ee dhanka gobolka Hiiraan. faahfaahinno kala duwan ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay weerar ay maleeshiyaad hubeysan ka geysteen xadka u dhexeeya dalalka Soomaaliya iyo Itoobiya, kaas oo sababay dhimasho iyo dhaawac intaba. weerarka ayaa si gaar ah uga dhacay deegaanka lagu magacaabo Xudiwagle oo hoostaga degmada Feerfeer Soomaaliya ee gobolka Hiiraan. wararka ayaana sheegaya in weerarka ay fuliyeen rag ka soo tallaabay xadka uu Hiiraan la wadaago dhulka dowlad deegaanka Soomaalida iyo Itoobiya, kuwaas oo kadib baxsaday marka ay falkaasi geysteen. ugu yaraan hal qof oo ka mid ahaa dadka deegaanka ayaa dhintay, halka ay dhaawacyo soo gaareen dhowr qofood oo kale, sida ay noo xaqiijiyeen ila dadka deegaanka ah. qofka dhintay iyo dadka kale ee dhaawacmay ayaa dhammaan dad beeraley ah, waxayna xilligaasi ku sugnaayeen beerahooda sida laga soo xigtay shacabka deegaanka. sidoo kale weerarkan ayaa yimid xilli dadka beeraleyda ah ay ka howlanayeen tacbashada dhulbeereed ku yaala deegaanka Xudiwagle, halkaas oo lagu soo weeraray. wararka ayaa sidoo kale sheegaya in maleeshiyaadka weerarka geystay ay ku labisnaayeen dareyska dowlad deegaanka Soomaalida iyo Itoobiya, taas oo shaki ku sii abuurtay dadka deegaanka. xaalad deegaanka ayaa hadda mid aad u kacsan, iyadoo dhaqaaqyo iska soo horjeeda laga dareemayo deegaano u dhow xadka labada dhinac. si kastaba marar badan ayaa weerar noocan oo kale ah waxay ka dhaceen Hiiraan, gaar ahaan deegaano u dhow xadka uu gobolkaasi la wadaago ismaamulka Soomaalida ee dalka Itoobiya. guud ahaan saaxiibayaal, waa naga intaa wararkii ugu dambeeyay xaaladda Hiiraan iyo Beledweyne. tan iyo kulan dambe waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.